الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي ويستاهل أحمد يوسف وحن كتر سنة هاي دخاتير تكهول قالوا وسارة حنان حولها ما أنت وحن مع فرحة دي الله قيب سنة يا دمان دخاتير براتي علم بين حنان حولها ما أنت وسجل لواتنكي أبريل وحن وده بلدجنا مالنتي دخاتير حنان حولها وحن قاد وفرح سنة إن ما أنت الله حسين مالنت دخاتير حنان حولها هير قرن وحن هالكن قاد هم بليه وقود دري يا دمان دخاتير حنان حولها ما أنت ويتهاي ما أنتي دخاتير حنان حولها وحلا بلابين حسيتان كده لا سماية سنتكم كوها سنة كي توسنكي ميمدو وجوين المشن سكوني موحة ويا إنه دبالدقنا ما أنت يدو يتهاي maxaan ku dhahay ujeedada looga jeeda sidii maxaan ku dhahday dhaqaatiirta xanaanada xoolaha loo ogaanaa roolka ay ku leeyihiin wadanka haday noqoto fursi fatigi haday noqoto maxaan ku dhahday xanuunadii siga gudbay dadka iyo xoolaha in guri kasto kamid ah maanta maxaan ku bulshadeena waxa lagu cunaa hilib iyo caano hilibkii caanaasna hadii aan la soo caafimaadin ma helayna maxaan ku bulsho caafimaad qabta marka halkan message-ka wasaaraddu sida waxa weeyaan in la ogaado maxaan ku roolka uu dhakhtarka xanaanada xooluhu ku leeyahay bulshadeena مهمة كلام الاسكيم ده وحويان إن أي دكاترة حناد حولكوا خلقاتان محن كده هذا وحي يعني وربحين أي سنة كي أنتي لصور عافي يا سنة كسوس عدو وحي لقبان دون إنك قيب قاتان إن مركا مسيج كان سيدا وحويان قف كستاء محن كده هذا دكتور حناد حولها إن أنا هالكن هم بريو قديرة أنا قوم مقعي وياي دكتور مصطفى محمد أحمد ما أنت وحوي سنة جوردي حناد حولها لما أنا هالكن وحنا هم بريو قديرة يا dhaqaatiirta xanaanada xoolaha meel kasto ay ku sugan yihiin dalka gudihiisa dibadiisa xarumaha shaqada waxa weey degmooyinka tuulooyinka dhammaan meel kasto ay ku sugan yihiin waxaan leeyahay maanta waa maalinteennii waxaa loo baahan yahay inaynu xusuusnaano sidaa darteed waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan halkan soo istaago anigoo xusaya maalinteennii maalintii aynu wada lahayn waxaan leeyahay hambalyo dhammaan dhaqaatiirta xanaanada xoolaha meel kasta ay ku sugan yihiin maanta hadal badan uma kicin munaasibadan World Veterinary Day ama maalinta dhaqaatiirta xoolaha waxa weeyaan waa maalin weyn munaasibada horta waxa fiicnayd in history Somaliland iyo munaasibada World Veterinary Day-ga in maxay ahayd munaasibada lagu soo daro cidii ugu horeysay ee qabatay munaasibada World Veterinary Day ayaan kamid ahaa waxaan la qabtay jaamacadda Golis labadayada soo wada jira ayaa 2015 baanu qabanay markii ugu horeysay waxa ku xigtay 16 waa qabanay 17 waa qabanay 18 waa qabanay 18 baa noogu dambeysay waanu ka yar caajisnay markaa maanta wasaaradda xanaanada xoolaha aad bay u mahadsan tahay markaana way nala waday aanu bilownay ilaawina wasaaraddu way nala waday maantana iyaga dib u soo nooleeyay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin munaasibadan in badan baa laga hadlay horta waxa la isku weydaarsadaa muhiimadda veterinary-gu u leeyahay bulshada dad badan baa ka hadlay veterinary-gu horta bulshada wuxuu u yahay laf-dhabar hadday noqoto caafimaadka bulshada hadday noqoto qayb muhiim ah uu ka yahay caafimaadka deegaanka qayb muhiim ah uu ka yahay caafimaadka dadka iyo caafimaadka xoolaha intaaba waa ka shaqeeyaan veterinary-gu waxay kale oo ka shaqeeyaan iminka waxa inagu badan oo aad iyo aad loo hadal hayaa arrimaha ciidamada xataa veterinary-gu qayb muhiim ah bay ka yihiin caafimaadka cuntada iyo caafimaadka ay cunayaan iminka waxa jira biological weapons hub laga sameeyo muxuu ahaayay ama cudurrada xoolaha oo hub ahaan la isugu laayo veterinary-gu waa kuwa ka qayb qaata ciidamadana way ku jiraan haday tahay ciidamada kala duwan ama bilaysa ahaadaan ama military ahaadaan ama asluub ha ahaadaan qayb bay ka yihiin marka munaasibadan hadal badan uma bixin aad iyo aad baan ka soo qayb galayaasha ugu mahad celinaya waxaana u soo jeedinayaa dhibaatada imika ugu badan ee haysataa waa laba dhibaatada ugu badan ee Soomaaliland haysata qaybta horumarka xoolaha inaga haysata waa laba waa cudurrada iyo calafka waa labada dhibaato ee ugu waaweyn ee haya labadaasna hadii aan xal loo helin horumar gaari mayno Dr. Ahmed Xaashi wuxuu ka sheekeeyay sida ay investment-ka dhibaato ugu yihiin xanuunado qof baa digaag meel gelinayo lacag badan kaga baxaysa hal maalin bay digaag oo dhan ka dhimanayaan waa cudurradu dhibaatada ku leeyihiin nin baa halkan Hargeysa area-deedan loo badan ka dhaqay
lo'dii siday u dhimanayeen lacag badan baa ka gashay way dhammaatay marka waxa weeyaan in laga shaqeeyo sidii deegaankeenna cudurrada aynu ula dagaalami lahayn oo iminka wadamada ina yar dhaama sida Kenya oo kale waxay sameeyaan deegaankii way kala baadhaan dhinac xanuun firiika ah iyo dhinac xanuunadu ay ka jiraan marka xanuunadii intaynu baadhno aynu dadkeena sida investment u sameyn lahaayeen oo xoolaha u maalgashan lahayn xooluhu waa meelaha ugu muhiimsan ee maalgelintiisu ay fiican tahay lacag fiicanna laga heli karo marka aad iyo aad baan idin wada salaamayaa